السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا آدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وسبتي وان سجالك بيش السديدات سنتك لبضة كون إيو شنية لباتنك مقال كان ما أنت وحن ربعنا ندي كل وذاقه وحن أجين معمول كترام مركي وحلك لوريجي بيشي جانوري إن وبالله مسافرين تدك ودن كشرع الدرادة كوسو قلي saddexdii bilood ilaa ay labadii bilood ee ugu dambeysana dadka Soomaalida ah ayaa si aad ah loo qaadayay oo dalkii Soomaaliya la geynayay hadaba waxa qadka ku jira Ciise Aadan Sharaawe oo kamid ah dhalinyaradii wadanka soo gashay isla markaana aan loo ogolaanin oo loo soo fasaxin wadanka Mareykanka gudihiisa oo ku dhawaad muddo sanad ah markii uu xabsiga ku jiray bishii hore la masaafuriyay magaalada Muqdisho laga dajiyay hadaba waxaan rabaa marka tallaabooyinkii kala duwanaa ee la marsiiyay markii la masaafurinayay Ciise bal inuu warbixin naga siiyo dhibaatooyin uu la kulmay safaaradda Soomaaliya iyo sida dadka Soomaalida ah ay waraaqaha go home-ka ay ugu soo jarto diyaaradda Turkish Airlines oo iyadu diiday dadka Soomaalida inay qaado maxay tahay sababta arrimahaas oo idil ayaan wax ka weydiinaya umrada sanadkan Salaama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada. 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada. 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. Haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. Faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 96454924 mahadsanidin bushaaro dadweynow idinkuna bil khayr dhaha ma rabtay barashada xifdiga quraanka kariimka hab online hadaba hadii ay jawaabtaadu tahay ha markaska barashada quraanka kariimka ee Daaru Basiira Quraan Online waxa uu ogeysiinayaa inuu qaadanayo arday cusub hadaba waalid waxa kamid ah culumta aad ka baro doonto adiga iyo awlaadaada markaska Daaru Basiira Quraan Online barashada quraanka kariimka barashada higaada afka Carabiga iyo barashada asaasiyaadka cilmiga shariicada islaamka sida salaada ataxiyaadka iyo waliba ayatu kursida waxa markaska ku jooga macallimiin tayo iyo aqoon ba u leh cilmiga ay dhigayaan wixii faahfaahin ah waxaad kala xidhiidhaa telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteen waa Daaru Basiira Quraan Online in Ciise soo dhawaana kaaga mahad celinaya wareysiga horta goorma ayaad soo gashay adigu wadanka Mareykanka waa mahadsan tahay walaal waxaan soo galay Mareykanka bishii 7 26 sanadkii 2024 macnaha 2024 xadudkan ka soo galay California San Diego meel yar ka soo galay marka xabsiga markaan ka soo galayna waxaan la gudbiyay qolo yar oo xabsiga oo ayagana security oo ICE la gudbiyay meeshaas waqti badan ku qaatay laakiin markii xabsigaas oo California la geeyay waxaan ku xirnay California 8 bari hadana tarasadaasi maray oo wadanka gobolka la soo leeyahay Arizona aan la bari ku xirnay kabacdi waxa la geeyay Louisiana waatay Louisiana marka waxaad ii sheegtay waqtigaada inta ugu badan inaad ku qaadatay waxaan ognahay Louisiana meelaha ugu badan ee dadka lagu xiray ku jirta wax imisa xabsiga ku taala tiri Louisiana oo dadka lagu xiro walaal Louisiana waxa ku taalo 12 xabsi waa gartay adigu mid kamid ah ayaad ku xirneen marka ku dhawaad muddo 10 bilood ah anigu 3 xabsiga Louisiana ku taala soo maray oo sida Louisiana ku taalo midna waxa la yiraahdaa Jackson Parish midna waxa la yiraahdaa Wing Correction mid kalena waxa la yiraahdaa China waa tahay marka xabsigaasi in muddo ayaad ku jirtay sheekada waxaan ka bilaabeynaa marka waxa jirtay in maalin la idin yimid oo aad u maleynayseen in xabsi kale la idin bedelayo laakiin si toos ah airportka la idin geeyay bal sheekadaasi aniga iyo dadka daawanaya mana dhageysanaya bal warbixin naga sii sidee maalintaasi goorma ah taariikhdu waqtiga ahayd xilligaas walaal wixii ahayd bishii shanaad maalintii bishii shanaad shanteedii ahayd walaal waxa jiray oo sidaas la socotaan baa waxa waaye safaaradaha horta way bilaabeen waraaqaha tarxiilka ay bilaabeen laakiin anaga safarkayna maana la ogeysiinin oo sababtoo ah dadka kale sida wadamada kale ka yimid waa la soo wacaa qofku waxa la yiraahdaa tarxiil tahay safaaradda soo wacday safaarad qofku bilaadle gurigii ma lagu tarxiila mise waa
mase waa joogaysaa qofkaasaa joo iskale qofkii jooga wuu joogaa qofkii baxaana wuu aqbalaa marka waxaad leedahay safaaradda Soomaaliya anaga si toosan noolama soo xiriirin oo nama weydiinin inaan doonayn inaan waddankeena ku laabano iyo in kale in anaga nala soo wacay iska dhaafay xataa safaaradda waa wacnay si aan uga hortagno waraaqaha ee safaaradaha daabacayaan safaaradda oo taleefanada way naga qaweysay cidna lama macaamishi waa weyni markii dambena anaga qasabaaba waraaqayn waa loo keenaba iyadoo qasabaa naloo keenay waana kiciimtahay waa tahay markii xabsiga la idinka saaray oo aeroboortka la idin geeyey maxaa dhacay sideese ku ogaateen in la doonayo in la idin tarxiilo walaal maba noo sheeginba nimankaa nima sirdoona waaye qaab sirdoona camal dadku qaadaan dadka waxay u maleeyaan dadka qaar daacadiska ah waanan garanayn diyaarado meel ay marayaan marka qorshe waxay ayagu isticmaalaan dadka in transfer wax la yidhaaho gobollada kale la geeyo oo diyaarada la saarayo marka ma kala garanayso qofka tikitka haddii laga qariyo diyaarada haddii lagu saaro hal mar ay kacdo waxay kasoo degaysaa Turkiga marka anaga walaal waa weydiinay oo kuwa shaqada ku cusub waa weydiinay xagga u soconaan dhahay wuxuu noo dhahay waxaa u socoteen Atlanta Georgia to Turkey to Nairobi adiga harayna diyaarada saarina bareefo laakiin arrintaasi ma waxa la idin sheegaya markii airportka la idin geeyay mase intii aad xabsiga ku jirteen marka airportka la geeyay oo diyaarada la koray oo aniga bas aan dhimanahay bas loo sheegay waa gartay laakiin waxaad ii sheegtay horta ka hor intii ay arrintaasi dhicin in idin weydiiyeen luqadda Ingiriiska ma fahmaysaan aad tiraadeen maya markaas kadibna aad aragteen iyagoo ka wada hadlayo oo dhahaya war adigu meeqa wadana dadkiis waxyaabahaas aad maqashay iyagoo ka wada hadlayo walaal markii xabsiga la keenay anoo gacmaha ku xirxiran katiinada inaga fureen waxay dhaheen walaal Soomaali ma tihin okay luqadda ma garanaysa Ingiriiska maya Ingiriis ma garanaysa maadaama hadda Ingiriiska waa garanaysaa su'aalo badan ay ku jawaabayaan marka aad waa dhibsanaysaa qofku dhibsana xabsi markii yimaado xogaa yar waa dhibsana su'aalaha badan tahay laakiin Englishkan wax waad ka fahmaysaan oo eber ma aadan ahayn English waa fahmayna xogaa wax macquul waa ka fahmayna marka waxaan aan ma fahmayno kabacdi waxay dhaheen ayaga meel fadhiisteen anagana meel fadhiisnay biyina siiyeen waxay dhaheen iyo jooga caadi waaye marka sheekay galeen waxay dhaheen ayaga dhaxdooda waxay dhaheen wadamada Afrikaanka waa dheeriyiin iyo wadamada Afrikaana u badan tagtay marka Senegal iyo Congo iyo Ghana iyo Kenya iyo Ethiopia Soomaali badan tarxiilay lagu leeyahay ay macna ka iska wareysanayeen safarada waa dheer tahay marka anaga marka aan arintaas aan maqalnay kabacdi waxaan gashay xabsi anaga Afrika u socon marka diyaaradii markii la yeeriyay oo dadku u dambeeyay anaga weydiin maxaa la walaal xagee u soconaa oo noo sheegay wuxuu dhahay Soomaaliya waxa u socotiin Atlanta Georgia kabacdi Turkey to Kenya to Soomaaliya anaga waa diiday maxaa dhahay anaga meel u soconaa ku dhahay sababtoo ah anaga wax lama ogeysiinin safaaradda Soomaaliya lama soo hadlin anaga dad waxaa dhahay oo sakiina Mareykan dib maan ka gelin Mareykan hadda xuduudka lagu qabtay waa soo dhiibnay sharciga wuxuu qabaana anaga macnaha anaga wuxuu qabaa sharciga qofka Soomaaliga ah inaan bala tarxiilin ba sharcigu meesha ku yaal dhigaya waa gart oo wadamada aan la tarxiilin waxa kamid ah Soomaaliya iyo wadamada yar sida maaragtay Soomaaliya Eritrea lama tarxiilay ayda iyo Afghanistan iyo Suudaan iyo ay sheegtay inay ku jiraan waa wadamadaas lama marka dadka qaar waa la fasaxay oo Eritrea ka fasaxay laakiin Afghanistan waa la tarxiilay Soomaaliya waa la tarxiilay laakiin Eritrea bas waa la fasaxay ayagan waa tahay marka waxa waa safaaradda safaaradda Eritrea waa diiday macnaha qof Eritrea la tarxiil waa gartay marka diyaaradii adin kaliya ka dhiman dadkii kala way raaceen waa diideen maxaa dhacay markaa kadib marka wallahi niyo waana jugayeen qol dabay la gashadeen waana jugayeen dhaawac ku yaalo sinta iyo lafta xanuunayso dhaawacyo badan ay soo gaareen yaa kula socday marka adiga markaas yaa kula socday adiga hal wiil oo Soomaali ah la socday waa gartay marka waxaad ii sheegtay sidoo kale jirdil kale in la idinku sameeyay marka laga reebo in meel gadaale inta la idin geeyay katiinad la idinku xiray in bac madaxa la idin galiyay oo la idin yiri ma baxaysaan oo la idin cadaadiyay walaal way jirtaa qorshaha qofkii bixi diido madaxa bac loo gelina qofka neefta lagu celinina ilaa uu yiraahdo waa baxa guriga aada marka anaga bacdi madaxa magii loo gashay neefta lagu dhigtay oo xaaladdu nagu xumaatay pilot-kii yimid oo macnaha time-ka diyaaradda dhici rabay pilot-ku markuu soo dhawaaday naga fureen bacda bacay jeebka gashadeen way qariyeen pilot-kii markii uu yimaadeen anagana waxa dhaanay meel mu socono waddanka in amni kuma jiro waa cabaadna ma faad markaas pilot-ku wuxuu dhahay dadka ma qaadaan dad diidan inay baxaan wadkooda aadaan ma qaadaan pilot-ku xanaaqo naga tagay kabacdi xabsiga loo ceshay xabsiga markii loo ceshay hadana cunaqabateena la saaray
قولك هاد قرينا قول هنا لك شو اللي راح حفصي عقاب واقرت معناها ضدك لو عقابه وراشيك لو جرو قول يرو مق ديوان واقرت ku jiro tambiri ku jirnay kabacdi qol kiriisada noo imaadeen way naga soo daayeen waxaad tirto waxay sheegtay xitaa tobankaasi beri in cuntada la idin diidaan oo sheegteen oo biyo musqusha aad ka cabayseen qolkiina ku taal awala tada waa loo diidaa qof kasta taxil soo diido tada waa loo diidaya qof kasta hatta marka qaar waxaan dhacdo qolka adoo ku jiro ayaa saxiix laga qaada faraha waa laga qaada maaragtay madaxana bacwa lagu gelina waa lagu nacsiina si aad diyaarad soo socota aadan diidin واقرت markaas anaga waxaad kaloo ii sheegtay aan ka hor intaan wareysiga kaa qaadan aan xoogaa sheekaysanay marka waxaad jirtay dharkii xabsiga markii hore aad ku jirteen in la idinka bedelay oo dhar kale la idiin geliyey isla markaana la idiin qoray inaad dambiilayaal tihiin maadaama diideen in la idin tarxiilo arrintaasina sidee u dhacday walaal horta waxaa jirtaa nimankan waa niman tuuga oo qorada hadda AIS la leeyahay waa niman sharciga ayagu rabaan qof ku dhaqmaantahay qofka markuu diyaarad soo diido waxaa laga dhigayaa criminal inuu yahay maadaama waddankiisa diiday maadaama safaaradda Soomaaliya ay aqbashay ninka inay damaanad qaaday asagana uu soo diiday macnaha waxa waa criminal noqonaysa waa gartay marka waa laga bedela dadka maarta waddanka laga soo qabtay dadka dilaya meel ugu la xiraya waa gartay dadka dambiilayaasha lagu daraya macnaha dadka dambiilayaasha lagu daraha marka si marka hadhow maxkamadda dhahaa ninka waa criminal waa gartay taas arrintaas jirto markaasina tarxiilkaadu wuu fududaanayaa haddii ay ku qoran tahay inaad dambiilo tahay tarxiilkaagu wuu fududaanayaa ciqaabtaadana siday doontaan kaa yeelayaan aniga way noo hajabeen waxay dhaheen kalkaa diyaaradda haddaa soo diidaan dharka jaalaha adii gelina oo high level high level la dhahaa oo dambiilayaal sarsaraa laydinka dhigaya laydinka dhigaa nalooga hajab waxaad ii sheegtay in ciisow in xabsiyadaasi Louisiana ku yaala ay Soomaali fara badan ku xirnayd tiradana aad ogaateen oo systemka aad ku ogaateen dadka xabsiyada ka shaqeynayeen idin sheegeen imise qof ayaa ku xirnayd xabsiyada Louisiana oo Soomaali ah walaal horto xabsiga marka dad waxa jira wiilal Soomaali oo dhowr inaga soo horeeyay iyo meesha noo soo horeeyay iyo anaga marka shaqooyinka waxa qabsanaa shaqooyinka meelaha la shaqeynaa maadaama luqadda garanayno shaqooyinka waxa qabanaa oo nadaafadda madaati iyo xafiisyada marka qof oo isku macaamil laga dhaxeeyo kala weydiinaysa wixii Soomaali noogo marka waxay noo sheegeen 372 qof in xabsiga Louisiana isku xirtaan xabsiyada kala duwan oo Louisiana bas gobolka bas laakiin 372 qof mar dabo marka aniga laba bil amal xabsi ku jiriya martaba gadaal ku weydiinay maadaama Soomaali badan la tarxiilay gadaal ku weydiinay waxay dhaheen 120 qof amal ka maqan oo dal la tarxiilay waa gartay marka waxaad ii sheegtay maamulka Trump inuu yimid adigoo 7 bilood xiran markaasi kadib tarxiilka ugu badanna laga bilaabo bishii shanaad ayuu si toos ah u bilowday marka waxay idin sheegeen in dad 200 ku dhawaad ah ay maqan yihiin xabsiyada ay ku maqan yihiin dadkaasina la tarxiilay marka dadka qaab nooc ah loo tarxiilay waxaad ii sheegtay labo in la isku raacinay walaal horta si sharci dhigayo sida wadamada Soomaaliya oo kale iyo wadamada maartay dhibaatada macnaha dhibaatada ay ka jirto amni darada ka jirto kale sharciga maxkamadda oo la yiraahdo oo meesha maxkamado badan ka jiro maxkamadaha qaar wixii ma angolo in qof Soomaali la tarxiilo amba wadamada dadka sida maartay wadamada Suudaan oo kale la tarxiilo ma angolo laakiin mashruuc markay qoladan aysa wixii dhaqaale si ku ilaa rabaan markay dadka markay waa la tarxiilaa markay safaaradana kulli dib ayaga heshiisa ka dhaxeeyo oo aynu Trump xilliga hadda la joogo asaga wixiis waa lacag iyo hajibaadii lacag waqti marka safaaradda marba hadii waraaq soo dhiibto adiga qofka Soomaaliga laba garab laga qabanaa madaxa bac loo gelin haduu diido marka hore marka hore qiimeynaan qofka qof diidayahay marka hore bac gelinayaan qofkaas oo xanuunsan ayaa la tarxiilaa waa gartay marka markii la idin soo celiyay kadib xabsiga la idin keenay oo dambiilayaal la idin qoray qol la idin galiyo mugdiga cuntadii la idin diiday maxaa xigay diyaaradda Turkish Airlines waxaa sheegtay inay ICE la soo xiriireen oo yiraahdeen anagu Soomaali ma qaadayna arrintaas sidee ku dhacday walaal hoosaada la socotid Turkish Airways xogaa dhibaato badan ay kala kulantay macnaha dadka transit waddankeeda ku marayo Soomaali airportka ku dhiban qofka Soomaaliga Turkiga markuu tago waa iska weynaa labada meel ku socdo ma yaqaan sababta Soomaali wax ka jiro oo qoonin marka Soomaalida badan way cabaadeen airportka Turkiga ku cabaadeen safaaradda diyaaradii ku macnaha
macnaha waa xabasho geeyeen marka Turkish waxay la soo hashay qolada IS waxay dhaheen qof Soomaali ah ma qaadayno ilaa oo qofka familkiisa oo xafiiska tago xafiiska waraaq ka soo jarto qofka soo raali waa qaadayna laakiin qof qasab lagu qaada arin ma qaadaynin waa gartay marka maxaa xigay marka tarxiilkaadii markii xabsiga leedii ku soo celiyay kadib oo aad diideen maxaa xigay marka walaal waxaa xigay nimanka horta mar maadaama diyaaradda Turkish Airways ay diiday qof Soomaali inay qaado diyaaradaha kalena inay qaadaynin waxay sameeyeen nimankan diyaaradda soo kiristeen oo imaaraadka laga leeyahay diyaarad waxaa la keenay garoonka militariga maadaama dadkan tirada badan aana si bulshada loo qaadi karin maadaama Soomaali ku jiraan in qarsoodi loo qaado kaliya weyga loo qaadi karo waxaa waa in eelboor militari laga qaado waa gartay eelboor shacabka ana qofka Soomaaliga ama buuqi kara ama Soomaaliya u dhigi kara fashal ka imaanay waa gartay waa xilliga marka diyaaradda militariga laga qaado goormo waa marka xilligaas diyaaradda imaaraadka la keenayo oo leedika qaadayo garoonka militariga ee Louisiana taariikhdu goormo bishii 7 ayaa waxaa la keenay garoonka militariga waa gartay isha 2025 waa bishii hadda dhamaato la soo dhaafo 7 bishii hadda dhamaato la soo dhaafo waa gartay marka airportkaas la geeyay Soomaali badan gobolada la keenay waxa la keenay Minnesota waxa laga keenay Michigan waxa la keenay adiga goboladana la keenay Soomaali badan marka Soomaalida ma Soomaali siday wadanka u soo galeen xabsi ku jiray ama se kuwa wadanka gudihiisa laga soo qabtayna way ku jireen dadka intaad ka warqabto walaal dadka gudaha laga soo qabtay waa dad iska yar 42 qof camal ku qiyaasay khalaas ama 45 qof meelaas u dhaxeeyay laakiin dadka xuduudka soo dhiibay aanan Mareykan wali aan tigin oo xuduudka laga qabtay oo dadkii soo dhiibay ah oo magaaldoonka ahay adiga balaas waxaan ku qiyaasay 230 meelaas diyaaraddaasi marka diyaaraddaasi 15 bishii la soo dhaafay ee July garoonka militariga la idinka qaaday imisa Soomaaliya haddii aad qiyaasto ayaa saarneed ayaa isleedahay diyaaraddaas walaal diyaaradda waxaa hadda ku haynay dadka qaar waa la reebay oo xataa dadka qaar waa laga reebay meesha diyaaradda waxaa ku haynay 67 qof oo Soomaaliya baa ku qiyaasay macnaha dadka marka ma tiri kartid oo dad gadaal ku xiriyin qof hore ku xiriyay marka dadku kala ilaalinayaan sababtoo ah kursiga ku fiisay laba Afrikaan lagu dhijina bal wax yar iiga sheeg diyaaradda marka iyo qaabka la idin saaray waxaad ii sheegtay in la idin wada jeebeeyay gacmo logo xabadka la isku xiray arintaas sidee markaas kadib kursigana la idin ku sii xiro suunka la idin xiray diyaaraddu diyaarad military ahayd oo shaqaale oo aysan ka shaqaynaynin oo flight attendant ama hostess oo military bas wixii aad dalbato xitaa military uu ku keenay bal arintaasna warbixiniga si walaal horta diyaaraddu waa international oo diyaarad military ma ahan waa diyaarad soo kiristay diyaaradana waxay ka raskiristay waddanka la yiraahdo Imaaraadka waa gartay magaad diyaaradda Imaaraadka galay waa diyaarad oo 7 oo waxa asal ah waa diyaarad ugu weyn diyaaradda marka 700 qof camal way qaadaan saan ku qiyaas diyaarad waa gartay diyaarad weyn ay ahayd marka diyaarad weyn ay ahayd dadka marka la saarayo marka diyaaradda la saarayo waa dhowr wadan ilaa 6 wadan la saarayo oo kala duwan Afrikaana diyaaradda markii lagu saarayo gacmaha waa laga xiraa caloosha lagu xiraa calooshaas laga xiraa lugahana waa lagu xiraa xirgaxta waa lagu dhuujinaa mafaat intaas oo silsilado waa marka oo la idinku xirayo waa silsilado kursiga marka ku filisatana katiinad kale lagu sixira saan isku dhaqaajin waa gartay adiga dhanba ma nuuxsan kartid marka haddii aad suuli u baahato maxaad samaynaysaa inta aad saaran tahay suulida marka u baahato nima kula galayo hal gacan ka furaya iridu tagnana waa gartay marka airportkii militariga markii la idinka qaaday xagee idin xigtay oo la idin geeyay marka oo diyaaradda la idinku qaaday Atlanta Georgia walaal waxaana la geeyay Cuba wadda leeyahay Cuba la geeyay diyaaradda markii ka kacday Mareykan Cuba ay ka digatay saddex wiil oo Soomaali ah oo markaan qiyaasay Soomaali ah oo aan waraysanay laakiin waana la keenay aaliya masaad marka waxay sheegtay saddexdaas wiil waxaa sheegtay xabsiga Guantanamo Bay in la geeyay oo halkaas la idinka reebay wiilasha Guantanamo Bay laga reebay kabacdi waa soo kacday diyaaradda marka saddex qof markii dejiyay Soomaalida diyaaraddu way soo kacday xagee xigtay wadankee xigtay wadan Louis Lira asagana jasiirad ku yaalo Latinkaasna wadanka Laos waa gartay Laos marka diyaaraddu waa meeshaas ay agargatay
dadaal laga dejiyay hadana way soo dhaqaaqday marka sidii bas caasi camal ay u shaqeynaysaa marba wadan ay tagaysaa dad ku dejinaysaa sidii bas camal ay u shaqeynaysaa waa gartay waxa waaye qof walba wadkiisa lagu dejinaa Laos ka tagteen kadib xagee xigtay markay idin wala Laos ka dhaqaaqnay waxa tag wadan leeyahay Senegal oo Afrika waa ta Senegal dada lagu dejiyay isagana waa gartay dada lagu dejiyay Senegal oo dhowr iyo 20 qof lagu dejiyay hadana 2 saac joognay waa ka soo dhaqaaqnay waxa imaanay Nairobi waa gartay taariikhda marka Nairobi Kenya aad tagteen goormay ahayd waa 18 bishii la soo dhaafay July 15 ayaana Mareykan ka baxdeen marka 3 maalmood ay sii socotaan macnaha hadda waxa ku daanay meesha la yiraahdo sida maaragtay Cuba oo kale ku daanay oo wax badan aan joognay Senegal wax badan aan joognay wad kale Laos wad kale wax badan aan joognay intaas ma xiran waa gartay Nairobi markaad ka degteen marka bal iga sheekay airportka Jomo Kenyatta maxaa dhacay wala Nairobi marka ay maanay diyaaradda meel oo keesa oo baakilay diyaaradda la dhigay diyaaradda yar loo yeeray way imaadeen diyaaradu markaas diyaar yaayeen oo aniga isugayeen saan qiyaasay infact waxa ay maatay markii uu horeysay diyaarad soo sugaan dadku qaadayso way soo sugaarisa diyaarad la saaray ayuu waqtiyeed ku qofka diyaaradda saara way ka ciisay diyaarad waxa ay maatay maadayna bareefada oo Kenya laga leeyahay Ethiopia qaaday dad Ethiopia ay dumar iyo rag isku jiraan saaray way kacday kabacdi waxa ay maatay diyaarad Juba Airways oo Soomaaliya laga leeyahay wixii Soomaaliya marka sidayna loo soo guray diyaaradda la soo saaray markii la soo saaray diyaaradda waxa dhaanay waa alxamdulillah hadaba diyaarad Soomaali saarnay qofkii nalooda alxamdulillah dib malahan marka imisa qof diyaaradda Juba Airways marka ku raacdeen aad isleedahay oo ku tagteen waxaan qiyaasaa diyaaradda 67 qof meelahaas 67 qof kama yareen sabta diyaaradda waxaan qiyaasay 8 qof in qaad diyaaradda aniga bas in qaad cid kale ma qaadin aniga bas in ugu dush waa gartay isla 18 bishii 7 July Muqdisho la idinka dajiyay marka diyaaraddu waxay u socotaa Malayna Nairobi 2 saac ma u socotay marka xamara laga dejiyay aniga waxyar ciiso aan ka dhaxgalay markii diyaaradda la idin saaray Nairobi waxaad ii sheegtay inaad dalbateen in kantiinadaha la idinka furo oo la idin diiday walaal horto nimanka waa la hadalnay nimanka Kenyaatiya diyaaradda xataa Kenyaatiya saarnay niman askaro Kenyaatiya saarnay wala raacdo oo ilaa xamar idin tagay ilaa xamar idin tagay iyo ninka diyaaradda wada nin Soomaali ahay wala hadalnay waxa walaalayaal naga furo waddanka ma socono iyo diyaaradda Soomaali ma lahaano anaga criminal maniin dad dilmaniin walaalayaal gacmaha naga furo gacmaha dhiiga lagu dhigay gacmaha maaragtay waan xanuunayaa naga furo inta kale waxaan waa ceebaan ku dhahay waddanka dagdagna naga soo xirin criminal in laga dhigo hada ceebaan ku dhahay naga furayo midka furay dheer waayo sharciga diyaaradaha iyo heshiiska kale waxa waa qofka in Soomaaliya soo xirmay sidii Soomaaliya ku tagnaa marka Soomaaliya tagnay katiinada laga furay waa gartay marka sheeka dhacda ii sheegtay katiinadii markii la idinka furay iyo ciidamadii booliska adinka warniyo wallahi inuu aad baa uga xumaaday arrimaha noocaas oo kale ina waddanka marka waddankaaga hooyo ay marto meeshii laga rabay in macnaha lagu soo dhaweeyo xataa aglistii niyadda lagu dhiso lagu yiraahdo waa dhacday waa la soo tarxeeli jiray waxay ma soo dhawaada waddanka soo dhawaada xataa lama dhihin saacad booliska loo diyaariyay katiinada laga furtay jawaani soo diyaarsaday jawaani labada isku qabsay heedha katiinadaha u baahanahay had kadib diyaaradda markay soo degayso jawaanaha soo diyaarsanayna oo katiinadaha ku shubno katiinada caadi maahan inaba caadi ma katiinada u baahana marka katiinadihii aba idinka qiimo badnaaday adinka ay isku dagaaleen waaba qaracnaba aniga xiran niman dhahay katiinada u baahanahay anaga marka niyad ahaan waaba ka dhiman Soomaalida waa gartay markii kale aad gudaha airportka gashayna waraaqihii lagugu masaafuriyay ayaa sidoo kale isku qabsateen kuwa immigrationka horta diyaaradda markaa ka deganay booliska lala soo diyaariyay booliska badada kutaan qasaba diyaarada lagu saaray airportkii irdisana la keenay dagaaladii waa la daba kacay waraaqa keenay leeyahay marka qof bixi karta mala waraaqa waa in ka talaaliyay ana waxaan ku dhaanay yar ka wadnay waxaan ku dhaanay macnaha wiilasha Soomaalida qaar waxa jira Soomaaliya oo Soomaali macnaha Soomaalida wiligeed aan digin oo gobolada ka yimaado hatta wiil waxaan ugu jira oo wiligiisba aan macnaha sharci hataan qaadan sharciga hatta naftiisa loo tusay wiil Soomaali ah taasoo kiyas Soomaali meel samaysan dad Soomaali meel samaysan marka wiilku wuxuu ku dhahay walaalayaal hadii macnaha waxaan ay tarxisheen
guriga ku aada diyaaradka ku raacaya ma diiday ma yedhe aniga way diiday sharcigan ana iskale maadaama ay ku sarxisheen iskale say u qaadanaysa ma yedhe sharciga jiisa guriga farta aadaysa wadana xabahaysan waa diidna dagaal yara meesha ka dhacay markii dambe waxay noo ogolaaday in koobina siiyaan ana waxaan ku dhahay koobi sii way waa gartay markii aad muqdisho tagtay marka adigu waxaad ka soo jeedaa Hiiraan gaar ahaan degmada Moqokori marka waxaad isku dayday inaad bal dadkii weydiiso tira diyaarad ma tagtaa maba aadan ka warqabin marka maadaama xabsi muddo sanada aad Mareykan ku jirtay xaaladda Soomaaliya iyo sida isku bedbedelaysay wax wara kama hayn waxa lagu sheegay in magaaladaadii aadan tagi karin Moqokori oo nimankii al-shabaab ay haystaan bal arintaasina sidee kula noqotay markii aad maqashay walaal waxa horta airportka markaan galay waxa dhacday aniga jiwiga ma la socon telefoon ma dhar maana wadan wax la yiraahdo kaba maana wadan dharkii xabsiga bisa wataa oo jaakadii cadeed iyo surwaalkii xabsiga bisa wataa mid kale aniga lambar ma wato qof aan wici karana ma haysto ma faad telefoon ma wato marka waxa ku dhaw wiilasha wareystay waxaan dhahay diyaarad oo inta ka bixiso maadaama dawladda Soomaaliya aniga meesha aan qasab lagu keenay maadaama gobolkaas aan kasoo jeedo gobolka dadka degan isdhahay macnaha meeshiisa macnaha qaraabada ka dhigay waxaan dhahay buluburta rabaa marka waxa la dhahay buluburta hada tagto iyo buluburta xageys waxaan dhahay Moqokori oo socda meel Moqokori ayaa ku dhashay meesha oo socda marka waaba liigu qosqosin waxa la yiraahday takimaati waxaan ku dhahay xabsi ka imaaday okay xabsi ma ka imaadaa warnii Moqokori digaalo waa la qabsaday ka diga waa laga soo qaxay haddana tarday meel kale waa laga soo qaxay maxaas meel yiraahdo digaal ka socda la sheegayo macnaha oo laga qaxayo oo digaal ka socdo marka aniga waan qaraacmay markay macnaha maadaama lambar aan haynin meesha ugu socdaan digaal ka socdaan meeshii macnaha aan isleeyahay hooyada iyo familkii aan soo boqdo waxa la dadkaas ay qaxayeen door ku jiraan ciise aadan kaaga mahad celinaya wareysiga aad ugu mahadsan tahay wareysi wanaagsan oo ahaa inkastoo uu nagu dheeraaday dib malahan waa kaaga mahad celinaya wareysiga adigana waxaan ku leenahay sidoo kalena ilaaha ku yasiro maadaama wadankii aad muddo ka maqneed haddana aad tagtay mahadsanid mar kale aywa mahadsantahay hada mahadsantahay